السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما تاجرش مانشستر يونايتد كحرن مانشستر يونايتد Somali Fans يوتيوب channel كمان يونايتد Somali Fans kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aan kaga hadli doono xigdiga cusub ee kooxda Man United Jadon Sancho. waxa barnaamijka la qayb qaadan doono Cabdisalaan Cabdullaahi Yuusuf oo ku magac dheer Master Gurey iyo Cabdisaaq Cabdul Qaadir oo ku magac dheer ana misna ah admin ka howlgala page-ka Manchester United Somali Fans. inta aanan kusoo dhaweyn barnaamijka waxaan rabaa xoogaa inaan ka taabto xidigan dhawaangalka ee Jadon Sancho iyo sida uu ku yimid kooxda United. sida la socotaan Sancho wuxuu ahaa bartilmaameedka koowaad ee Man United tan iyo sidoo kooxda u qabtay macallin Ole Gunnar Solskjaer xagaagii horna wuxuu ku dhawaaday in uu ku soo biiro laakiin maalmihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ay labada wakiil ku kala tageen maadaama Borussia Dortmund ay ka tanaasuli weyday qiimaha xidigan ay dul dhigtay laakiin ugu dambeyn Manchester United waxa lagu sameeyay isbedel dhan maamul agaasimo ciyaar loo sameeyay aan weligeen hore u lahayn Manchester United taas keentay in heshiiska la dardargeliyay sida la socotaan markuu suuqa furmay Man United waxay ka gudbisay laba dalab laakiin labadii dalab isla markiiba Borussia Dortmund kuma sii daahin oo hore ka soo diiday laakiin dalabka saddexaad ee Manchester gudbisay wuxuu ahaa mid ay ku qanacday kooxda Borussia Dortmund qiimaha deertaan ee Borussia bilowgan ay weydiisanayso wuxuu ahaa 85 milyan laakiin Man United way ka diiday oo isjiid dheer kadib ugu dambeyntii waxa Jadon lagu heshiiyay in la siiyo Dortmund 77 milyan oo u dhiganta 90 milyan oo lacagta Euro-ga waliba intaas waxa xusid mudan qiimaha qaaliga ee Borussia Dortmund waxay ku bixin doontaa Man United waxay lacagtaas ku bixin doontaa muddo 5 sano ah cajiib waaye waxaana meesha ka fahmi kartaa sida ay u shaqeynayaan dadkan cusub ee kooxda lagu soo kordhiyay sida la socotaan isbuucan sidoo sheegay Fabrizio Romano wuxuu dhahay Man United isbedel waxay sameeyeen maamul taasana keentay in ay ka shaqo badnaadaan marka loo fiiriyo xagaagii hore sababtoo ah ragan hadda loo magacaabay Falager iyo agaasimaan cusub maalin walba shir joogto la qaataa macallin Ole Gunnar Solskjaer waxa waa team isku xiran waaye marka taas keentay in la dedejiyo Sancho aan bal la gaarin July ka hor in la dhameeyo heshiiskiisa taas keentay marka isku soo wada duub haddeertan Sancho waa ciyaaryahan Man United ah isjiid dheer kadib waxaan rabaa in aan ku soo dhaweeyo hadda barnaamijka anam oo ah saaxiib ama adminkeena page Manchester Somali Fans anam ku soo dhawow saad socoto ugu dambeyn Sancho Man United gacanta ay ku dhigtay waliba Borussia Dortmund qiimihii ay xagaag hor ku doonaysay 35 milyan hoos uga soo dhacday waliba waxa si xusid mooda Man United waxay bixin doontaa 17 milyan oo kaliya bixin doontaa marka ugu horeeyay bal ka waran isbedel ku yimid maamulka hab maamulka ku yimid kooxda Man United waa maasanta Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Manchester United sida ogsoonahay waa ku dhawaaqday Jadon Sancho runtii aad iyo aad way ku dhibtootay labada xilciyaareed ugu dambeysay marka Manchester United waxaan isleeyahay saxiixa Jadon Sancho waxa u fududeeyay habka maamulka la bedelay taasoo uu Falager iyo Jam gudoomiyahan football director-ka taasa fuudaysa asleeyahay xisi in oo fuudaado waliba waxa la leeyahay kibirkii Borussia waa la jibiyay xagaaga hor way diiday xitaa hoos way kaga soo dhicweeday in 120 milyan oo ginigis oo euro in ay hoos ku dhinto haddana 90 milyan waliba 5 sano lagu bixin doona lacag aad iyo aad structure-ka Storm ayaantan dhan waxa la isku hayaa waxay tahay qaabka bixinta lacagta loo bixinayo Manchester waxay rabtay in macnaha 5 sano ay ku bixiso lacagta Borussia waxay u baahneed in lacagta qayb loo hormariyo qaybna 2 sano ugu dambeysay lacagta lagu bixiyo sidaas ay tahay Manchester ayaa ku guuleysatay loolanka in structure-ka qaabka lacagta loo bixiyo 5 sano ugu dambeeyay 5 sano soo socda waliba marka ugu horeeyay Man United waxay bixin doontaa 17 milyan bixin doontaa marka taas waxa ka filan kartaa ka arki kartaa in oo aad iyo aad oo istiraatiijiyada kooxda ay u bedelmatay waliba waxa ma la dhihi karaa macallin Solskjaer balanqaadkii oo bilowgii xilli ciyaareedkan uu sameeyay uu ka dhaweeyay Solskjaer wuxuu dhahay aniga waxaan bedelnay oo aniga iyo waxaan isla fadhiisanay idwadaad waxaan go'aansanay oo in aan bedelno systemkii u yaali kooxda waliba intaas wuxuu sii raaciyay waxa imaan doono ciyaari hadda kadib Man United ma noqon doonto meel loo soo lacag doonto waxay noqon doontaa meel ay imaan doonaan oo kaliya ciyaaryahanada ku shaqeeyeen ayaga Man United aad iyo aad isla markii hadalkaas kadib Man United waxay magacaawday director magacaawday shaqadiina waa aragtaa oo markaa fiirsad xagaaga hor sameeyay ugu daba soconeeday yaad isku mid ma heshiiska Sancho marka laga soo tagay xil ciyaareedka hore iska meel iska dhig xil ciyaareedkan hadda markuu bilaabo suuqan waxaan dhamaan bil lagu dhameeyay heshiiska Sancho aad iyo aad Cabdiraxmaan Manchester United heshiiskan waxay ku qaadatay muddo bil ah
hel ciyaareedkii hore iyo wixii kasii horeeyay hel ciyaareedkii kasii horeeyay Manchester United waxaa u maleysaa in oo adkeynaya heshiisyada ay la galaysa ciyaartooyda kaleete maamulkan suuqa u qaabilsan oo ugu horeeyay Woodward oo nin ku fiican oo arrimaha footballka oo u xilsaaran dhanka ganacsiga marka taasaa keeni karta in Manchester ay ku adkaato ciyaaryahan walbo in ay soo qaadato oo garta aad u maasantahay waa kugu soo laabanaa xidigan wuxuu tijaabada caafimaadka gudbi doonaa marka xulkiisa maadaama uu asiga matala Euro markuu soo dhamaado tijaabada caafimaad mari doona waana la soo bandhigi doonaa Cabdisalaan soo dhawow ugu dambeyn ma inaad gacanta ay ku dhigtay saxiix aad sugaysaa Jadon Sancho bal ka waran dareenkaaga soo dhawow waa maasanta Cabdiraxmaan runtii waxaan kamid ahaa dadka sida aad ku weyn u taageeray Sancho inuu naadiga imaado sidaan wada ogsoonahay Sancho waa ciyaaryahan heer sare xirfad sare leh waxyaabaha aan ku taageersanaa ciyaaryahankan waxaa kamid ahaa naadiga Manchester United waxay ciyaartaa kubad counter attack garbahana ka dhisan macnaha naadi marka counter attack ciyaarayso waa inay hesho ciyaaryahan orod badan xirfad leh dhameystir fiican leh Sancho waa ciyaaryahanka ku haboon tacticadaas marka muddo badan aan daba soconay aad iyo aad ugu faraxsanahay maadkiisa kooxda Borussia Dortmund xagaaga hore 120 milyan ay ku goorgortameeday hadda yartaan keerkeedu waa la jibiyay oo 30 milyan wax ka badan ama u dhow xitaa way hoos u soo dhigtay qiimaha bal ka waran isbedelka Man United ku yimid runtii isbedelkaas waxaa dhihi karaa waa qaab isbedelka Manchester United ku yimaaday xagga maamulka markii isbedel uu ku yimaaday waxaa isbedeshay istiraatiijiyadii habka suuqa loo galayay waxyaabay dhan waa inay fududaadaan waxaa sababay isbedelka ku imaaday shaqaalaha marfalaajar iyo waxaa sabab waan leenahay ninkan cusub ee doofka aad waa mahadsantahay waxaa hadda khadka soo galay san dareemaya Cubeyd oo ah saaxiib beeshka Manchester Somali Fans ku xiran marka kugu soo laabanaa Cabdisalaan Cubeyd soo dhawow waxaa si toos ah ugu jirtaa barnaamijka ugu dambeyn Ma United gacanta ku dhigtay saxiix Jadon Sancho oo barnaamijka ugu weyn kooxda labadii xagaa ee la soo dhaafay marka ugu dambeyn hadda gacanta ay ku dhigeen kooxda soo dhawow marka aragtidaada Cubeyd صاحبك سلامة دمان تاجراش مانشستر يونايتد Somali Fans ku xiran aad u salaama halkaan ka salaama runtii dawraysta Jadon Sancho waxaa sugaynay 2 sano 2 xilli ciyaareed aan leeyahay 2 xilli ciyaareed Jadon Sancho ku jirnay runtii maanta waxay noo tahay taageerayaasha Manchesterna maalin weyn u tahay annagana waa kamid ah taageerayaasha maalin weyn noo tahay runtii Jadon Sancho qof kastoo Manchester taageera Jadon Sancho ka dhig badatay runtii waxaa jeclahay maanta taageerayaasha Manchester ee dibgeena ku xiran inay ku farxi doonaan in laga soo wareeyo Jadon Sancho waxaa leeyahay Sancho wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka saddexaad ee ugu qaalisan horyaalka Premier League ee kooxda Man United marka ma isleedahay arintan cadaadis ay saari doontaa adigoo og in saxaafadda Ingiriiska aad ay ku daba dhiganayaan mar haddii aad tahay ciyaaryahan lacag qaali ah ku fadhiyo مثلا أولي بصي عارس كوحين بل مثلا أنت السامين أيو كلن كرتا horta lacagta oo laga soo bixiyay Jadon Sancho waxa la qaaba ka badan u qalmay waa nin farsamo fiican gool dhalin leh ku fiican kubadaha maxaa la dhahaa baasaska goolasha la saacaysay halan goolasha badan oo dhaliyo waxa ka caawinayay Jadon Sancho waxay la tahay in lacag ka badan u qalmay inkastoo dadka wargeysyada Ingiriiska ay isku dhigan ciyaartooydooda oo xogaa moodid xaggaas in maxaa la dhahaa ay ka jiifaan haddana Jadon Sancho in lagu dhigi karo ma halin lagu dhigi karo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ka waran Sancho ugu dambeyn hadda gacanta ay ku dhigtay kooxda Man United adigoo og in weerarka Man United xagaagii hore oo ahaa mid aad u sareeyo oo Man United waxay dhalisay wax ka badan 115 gool marka uu leedahay weerarka Man United oo markii hore si fiican haddana uu ku soo kordhin karaa mise macna Solskjaerna waa wuxuu haystaa ciyaaryahanka uu sugayay mal ka warantaana muxuu ku soo kordhin karaa Sancho Man United absolutely Sancho waa boss kaliya noo banaana hadda arkaynay maxaa la dhahaa Bruno Fernandes wuxuu sameeyay 95 isku day oo lagu filin karo gool oo sameeyay waxaan rajeynayaa Jadon Sancho inuu noqdo maxaa la dhahaa kan ugu fiican baasaskaas iyo
maxaa la dhahaa Bruno fursadaha uu abuurayo ku fiicnaan doono inuu dhaliyo runtii waa ku kalsoonahay kubado dhalinayo mararka qaar ma aamini kartid xataa saddexdii ciyaareed soo dhaaf ninkan bandhigiis joogto ahaa oo kulan walba sanad xil ciyaareed kasta wuxuu kula geelinaya wax ka badan 30 gool marka bartilmaameedkiisa Jarmalka aad u sareeyaa marka waxaan u rajeynayaa Sancho inuu la qabsan doono kooxda Man United misana uu dabada baahida fog ee ka jirtay garabka midig ee weerarka waa maasanta Cubeyd Warsame برانشين هو سيجان عبسنا هذا كوكو صلاة تي سولشر وقدام سي عندنا وكلا برسي يدي ودلبناي وحوالو كان وحنا يكلمين هلا صوت ضايع بهدي الربيع سانجا يا هذا كي قدام بي ولا بحاجة وكده وجيت ما هذا جعنته يا رجل مثل هذا مع سولشر يتبدل في عنه يسميه كوح هذا مركات وفيرس وهالك وكصوبة ضاي مركو إيمانه بل كورن أرنت سولشر عبد الرحمن وما سنتهي أرنت صدق أنك الله horta anigu waa dhalisanay ninka social laho waxa isleeyahay kaliya kuma filno in ciyaartoy uu helo waxyaabo badan oo aan ka dhalisanahay jiro dhanka tacticada ah marka dhankaas hadii uu daboolo baahiyinkaas uu daboolo waa dhig kara siisa kan wuxuu sameyn karaa xagaaga hore san la socono Man United maysan haysan Paul Pogba wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu muhiimsan marka laga hadlayo khadka dhex uu ka maqnaa inta badan dhaawac uu ahaa Bruno Fernandes shaxdiis ku soo kordhiyay waan aragtaa maalmihii ugu dambeeyay Man United ee ka hartay tartanka horyaalka marka misliga karta hadda maadaama uu helay Sancho oo hadii dad badan waxay aaminsan yihiin xitaa hadii uu xagaaga hore xitaa helaha Sancho in Man United tartan dhab ah ay galeen hadeertan Sancho lagu soo kordhiyay iyadoo ogtahay Manchester United in xagaaga hore weer gool dhalinteeda aad u fiicneed oo haddana Sancho ay sii heshay haddana ay ku sii dhowdahay saxiixa daafaca Real Madrid oo ciyaar ee Varane hadii Varane uu helo Solskjaer Sancho uu helo ma dhihi karo Solskjaer waa uu shaqeysan karaa still lama dhigi karo aniga fikirkeyga markaan fiiriyo sababtoo ah kaliya kuma filno Sancho horta waa boost fiican oo naadiga anfacayo laakiin naadiga sida ogsoonaa seasonka hadda dhamaaday anagoo aan is dhigi karno horyaalka waa qaadi karnaa oo hogaankii aan hayno oo si fudud uu gacanteena uga baxay waxaana keenaya waxay tahay tactically Solskjaer ma aha nin carboon ma aha kubadda waxa loo baahan yahay kubadiis inay lahaato kubadda high press waa dareema ninkaas asna afka soo cunayo asna su'aasha weydiiya soo dhow anam waa maqashaan filaa Cabdi wuxuu leeyahay bal ka waran Solskjaer maxaa ka leedahay arintiisa runtii Cabdiraxmaan aad iyo aad u maasan tahay Solskjaer waxaan Cabsalaan aad iyo aad u maasan tahay adigana waa fikirka soo jeediyay horta waa mid meesha ku jiro laakiin aniga waxaan mid aan ku darsan karaa waxay tahay Solskjaer xil ciyaareedadii labada xil ciyaareed ugu dambeeyay markii loo fiiriyo Manchester runtii aad ay u soo kacday markii loo fiiriyo xil ciyaareedadii oo Jose Mourinho Luis van Gaal David Moyes oo kale Manchester taas iyo Manchester tan hadda markii la fiiriyo Manchester waxay u muuqataa koox rajo leh taasna waxa uu wacan Solskjaer kooxda waxa oo u wada wadada saxda ah jaha oo saxan ay u wada taasna waxa uu wici kartaa dooqyada mar walba oo suuqa ka doonta markii loo fiiriyo Jose Mourinho kale ciyaartoy daa laakiin ana masaas leeyahay aan ka dhaxgal saaxiibkay raal noqo macnaha isbedel ma keeni karto ciyaaryahan in la soo saxiixdo ciyaaryahanka naadiga wuxuu u noqon karaa awood dheeraad ah laakiin naadiga waxay horumar ku gaartaa koob ku qaadaa tactical aniga tacticadiisa dhalisanaay hadda u fiirsatid kulamada qaar oo gacanteena ka farabaxsay sida Crystal Palace kulna la ciyaarno kale naadiga ma lahan macnaha ninka intuu macnaha garoonka soo dago ciyaartooyda kuma qaylinayo Bruno si fiican u raacdamnaa saa ogsoonahay ciyaaryahanada qaar waxay muujiyaan awood kibir ah marka wuxuu u baahan in la canaanto marka waxa isleeyahay asaga tacticadiisa wili wax u dhiman sababtoo ah Manchester United oo horyaalkii gacanta ku haysaa si fudud sito oo noo gacan bixisa marka tactical ahaan aniga ninka waan dhalisanahay ciyaaryahan kaliya wuxuu soo kordhin karaa isla taas sidaas lama dhigi karo sababtoo ah Manchester iyo Solskjaer markii loo fiiriyo Solskjaer Manchester runtii ani waxaan u arkaa tababarayo ku haboon inuu yahay taasna waxaan u dhigi karaa Real Madrid oo kaleeto intoosan Jose Mourinho imaanin Real Madrid ilaa Carlo Ancelotti inta hadda waqtigan oo imaaday waqtigii ku horeeyay Real Madrid runtii aad ay u adkeed inay Champions League qaado ayadoo ciyaartoy intaas la haysatay taasna marka waxaa la dhigi karaa in kooxda dhisma basical hoos laga soo dhiso ciyaartoyda ku haboon ay hesho Manchester United Solskjaer runtii waa nin iska qabooban Manchesterna anaga inta daawanayna Sir Alex Ferguson hataa waa tababar iska fadhiyo laakiin
oo laakiin wuu guwaabin jiray laakiin taas ciyaartooyda ku xiran tahay inay garoonka waa sax laakiin ana waxyar ka dhaxgalo aad iyo aad horta Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ku daydaa aan xaqiiq lahayn ninka la yiraahdo Sir Alex runtii waxaa haboon markii Sir Alex oo kale lagu dayana hal wuxuu ka dhaxlaan dhigi karaa aniga taas oo ah qaab ciyaareedka kooxda naadigan weligeed waxay ku dhisneed qaab counter attack ah kubadeeda laakiin markii la fiiriyo qaab ciyaareedkii Sir Alex iyo Ole farqi weyn u dhaxeeyo waxaana farqigaas ah macalinka isku sameeyay dhaqmo jiray ninkaas wuxuu sameyn jiray ciyaartooydu canaana jiray way ka cabsan jireen raacashada nin khabiir ah hore u soo fiirsta ciyaaraha uu guwaabin jiray ma ogolaan jirin xitaa waxa hawstaa ciyaar oo Evra oo si fiican intuu ciyaaray sidoo asaga u qabay derby Manchester oo dhahay macnaha wareys u bixiyay asdaay kulankan adiga man of the match u qalmi amaan lagu siin doono sidaalkiisa asoo wada sheekaysa dhex martay war waxa looga bilaabay adiga ugu xumaan la garoonka waa ninkii garoonka ugu fiicnaa sababtuna waxa keentay kama ahayn xumaan ninka xumaan laakiin guwaabinaheed waxa la maxaa Bruno Basco ugu celisay golhaya markaas oo noo ah Van der Sar marka guwaamintaas ka maqanaa isla laakiin tactically oo uu wataa Sir Alex oo okay amar adan ka dhaxdo macallin walba dhaliilo iyo wuxuu leeyahay iyo sheeg wax amaan uu leeyahay Solskjaer saad ogtihiin malahan xaqiiq markaas ku sheegna ma macallin weyn hadeertan soo dalacay laakiin qabiirnimada iyo way aragnimada ma wax lagu dhashto aad iyo mar walba adiga qalad sameeysid qaladkaaga waxa ka helay way aragnimada ku ziyaada hatta dibadda ugu laaban waayay Sir Alex Ferguson wuxuu ku dhawaaday xitaa in shaqada laga eriyay 86 yimid ilaa muddo wax koob ma qaadan FA Cup ugu horeeyay kadibna naftu waxay ku soo baxday 5 sano kadib سجاشني كوي إريك كونتانا مركوه له مركا أنت اسمعينات وحي أسمع دبر أذيك أسمع كده إنه عارف حل وعنق إنه نقض معنيك وين تاريخ ذادي وهذا كقول يستبح لك شيء كرما مركا الصوص هذا أصولها ونه هرت وحب بدل حقيقة وحقها اللي وحياة خلص كمان التركة سيستم كقول هو بدل مركان لقى هذا وكلا هذا أريمها إنسايت كقول لحد دين حتى هو بدل مركو جوزيه كل اللي مش جوزيه كقول ذا كالوريجا ولا سعودين حتى وحجري شغالها عنتظر وحوله حتى مدة سجال بلوده إسلام أنا هذا النوع أنا جيو عير تويده وحدرين قرت ماشي إنه تسد حبسي كوكو أدي صوشر وحياة أوري وحلي وحكمت عير تويده قار بوق كجري وحلي قل كلبس وحقومي مثلا وحواي شيء إنها تحلي لكن أنا عبد الرحمن وحسلي هاي سنة كان سانجو هلي سان فيلايو دافعين نادي ولا سوسي حضنتا أنا مركا أنا وحان قبا سنة كان هدو كوب قادوا أنا وحبو ما هاي أنا عشان ما يعني تثبت سواك سور جدا صوبته مانشستر يونايتد سدح لبض سنة ودن بيسي إيو سنة كسوس عليه سنة كسي حاجة أفر سنة مانشستر وحاقبا سولشاير إن لسيو تاسنو حان كلي كرا مانشستر سيدان وجدنا وسو كعيسى ciyaartooy waxa ka maqan ciyaartooy أنا مسؤولي كان مركب واي قفك هدي أو صحيح لو كانوا أو لو دمستري هدي أو واحد كانوا إلى ماشي أصيغ مرسيك لما طالع صحيح وصح معناه وحن بكهذا وبصحيح مانشستر هذا سانجو ويقع تسا أكسون هاي هديك سيد فرانا سبب كانت مانشستر يونايتد إنه حكى له أبا هنتا لمبر كرلحاد عياريان كعياره صح رايس وكانت هذا نمبر ساي كلي وحاجة نادي ماتيتش جو ماتش من الدقة كده ويماتي ما أنت بدل مركز سولشا وحو أديك سدا الشحذ دايمونك أو مكتومني إفراد أنت بدل وين عيار تاسنا رونتي كواحد مركي لو فيري آدي ولبتوتا سدا جانس أبور كوكالات الملهن مركا مانشستر هدي أنت نادي داوعية قلي كرو وأهل العياريهم والبابوسكي سو بدل أصيغا وشيء وحودا هدان ربنور أنا كان نخون كوحد وفيع وأنا مروا بهيسنا وهذا بيش هذا السوداء بدل فيع ميو كالات وتوص والله اللي كمان وصل كم هذا الكاس نواد دريم كرتون توص وطاونا يعني جودي كوحد وطاونا إنه له أنا إن ربنا ترتن كنا هذا وأنا مرة وأنا هاي سنة كوحد كوحد هادرتان مقالة لو ديسانوها بدل والبع عياريان وهيستا أديات مانشستر waxay aad wiligeed saas laakiin gadaali dambe waxa muudaa inay si dhumeedo Chelsea hadda saas oo kale ayadana bedel fiican noocaas way marka kooxda waxa lagu baahan yahay marka inay tartan galeeda in ay haysto ugu yaraan 4 ciyaaryahan 5 ciyaaryahan oo u dhigan kan kid kugu jiray kan kale aad taasna waxaan dhihi karaa Manchester sanadadii ugu dambeeyay
ciyaartooyda waxaa macnaha ka tusaale qaadan kartaa Fangalo karto Mourinho kaleete ciyaartooyda ku haboon kooxda ma imaajirin hadda kaleeto markii aad fiiriso Solskjaer lacaga loo imaajiray Sanchez oo kaleeto aragtay 500 oo ku taageersanayo 500 aad iyo aad 500 oo kale oo ku imaado Sanchez waa tii oo xitaa waxaana haddana ay tahay kama faa'iideysanayo markaa fiirisid ma lahayn director ma lahayn waa koox weyn kubadan casriga maanta koox walba waxay u kala guulo sareeda director Solskjaer waxyaabo ugu horeey u bedel waxay ahayd asana hadalka toos ugu dhawaaqay aniga iyo Edward Wade waxaan ku heshiinay inaan bedelno systemkii kooxda u yaal isla markaana Manchester waxay magacaawday Martigan iyo troolka badan adiga saameyn ku yeelan markii ciyaartoy lacag waaweyn ka soo bixiso kale waxa sababta ah koox weyn waa ay qaadato runtii Manchester United wax kale loogu cudur daari kara hadda hataa xil ciyaareedka soo dhaafay runtii Manchester ayadoo oo sidaas ah oo ciyaaryahan inta badan ee boosaska kala maqan yihiin waa aragnay meeshay gaartay runtii aad ay u dagaalantay marka Manchester ani waxa isleeyahay hadii Varane kale la keeno koox lagu soo kordhay daafac oo muhiim loo baahan yahay lambarkan lixaad oo kale oo laba si rasmi ah meesha daafacyada u ilaaliyo kubadna dhis horan u wada kubadaha si ay u helaan Bruno Fernandes iyo Pogba kale si ay Janus waqtiga aad noo hayo aad u mahadsantihiin barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay arrimaha kooxda ku saabsan iyo Saïd Jaydan Sanjan halkan noogu soo gabagabay aadan u mahadsantihiin sida quruxda badan oo fulgashan xabsan adigna aadadku aan ugu mahadnaqa insha Allah aad gudoomiye warahmatullahi ta'ala wa barakatuh